aniga laftirkeyga aniga wax maadaama aan jeclahay waxbarashada kuma xirno inaad ku taageertay
qaybo ka mid ah maamulka iskuulka oo maanta ay jecelahay munaasabadda inay kaga faa'iidaystaan adduunyada isku baahan tahay ee la yidhaahdaa oo aan si qofka si kasta uu karti u leeyahay ama jees u yahay ama uu yahay qof karti badan haddii uusan waxbarasho helin waajo ama karti fiican la yeesho oo inkastoo jeesiga rag yidhaahdo leeyahay haddaan garabka laga qaban kari yimaado waxaan jeclahay inay khudbadaha inaan fiiriyo waxaan wacayaa gabadha lagu magacaabo raxiila xuseen maxamed waa dhankii khudbadaha ugu talagalay munaasabadda maanta haddii ay noqonayso mar kale raxiila xuseen maxamed tafadal soo dhawow halkan ka soo jeedi khudbadii maanta ay ugu talagashay I'm very happy to be with you and suggest that about it's very important for the new generation. Education provides education development human mind. We have a country here general brother speech the director Muhammad and why we have another generation to السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا هنا واحد ثلاثة معلمين عربية بسم الله الرحمن
If you want to give the medicine and information, you must become graduate to Vita Philosophy Institute, University of Inshallah. So, who hope their children to be scholars, must become to graduate to Vita Philosophy Institute and see the reality. Finally, I thank all participants who come in different places for their participation and appearance for the graduation ceremony. I would also like to thank here brother distributor director Muhammad Ahmed Nagaya, Vice Deputy Abdurrahman Shayaro, Teacher Imam Muhammad Barre Nazir, Muhammad Ali Nairo, عبد العزيز احمد مغو باري يحيى ابو سليمان